maanta waxaynu ka hadlaynaa colonial services documentiyada yaalla ee markaa xarunta baarlamaanka ee lagu kaydiyo. dabcan qofkii raba uu kala soo bixi karaa aqalka baarlamaanka amba magaranaysa macluumaadka la xidhiidha xogaha baarlamaanka iyo documentiyadiisa online. xaggan kalena waa ka marka halkan waxa weeye golaha baarlamaanka ee ingiriiska ee boqortooyada ingiriiska oo markaa kalfadhi ka yeeshay kalfadhiyadii ay ka heelan jireen dowladda ee ku saabsanaa dowladda daraawiishta. dabcan waxay doonayaan in miisaaniyadda loo kordhiyo kharashaadka lagu qaadayo ololaha dagaal ee lagu qaadayo dowladda daraawiishta ee markaa doonaysay in kharashaad fara badan markaa loo kordhiyo. dabcan wuxuu dhacay kalfadhigani 3 bishii 3 1910 muddo laga joogo ku dhowaad 115 sano qarni iyo 15 sano. dabcan Mr Dillon wuxuu ahaa malaha xubin ka mid ah baarlamaanka oo markaa haddana khaldanayn hortegay golaha baarlamaanka. waxaa dadkii aaminsanaa in bal xukuumadda ingiriisku ay wadahadal nabadeed la yeelato sayid maxamed cabdulla xasan isagu laftirkiisu inuu warqad ka helay oon furaya sayidka oo markaa ku martiqaadisay bal inay is arkaan. dabcan isagu wuxuu leeyahay maadaama ay xukuumaddu doonayeen inay ku daraan lacag adigu dhan 57,000 ilaa 90,000 xilligaa markaa joogtay oo la doonayay in miisaaniyadda dagaalka lagu kordhiyo. marka wuxuu leeyahay sayid maxamed cabdulla xasan waxa weeye a man of ability, waxa weeye nin karti leh. markuu isagu baadhay yani sheegay sayidka uu magaranaysa xoogaa daraasaad ku sameeyey because wuxuu yidhi wuxuu u waday buu yidhi sayidku olole gobonnimo doon oo ka dhana boqortooyada ingiriiska. dabcan boqortooyada ingiriiska marka lagu sheegay waa boqortooyo ka talinaysay qaaradaha kala duwan ee adduunka afarteeda gees. marka ololaha sayidku uu waday 10 ilaa 12 sano xilliga dabcan waa 1910 markaas waa markii ingiriisku ay xeebaha gobollada waqooyi u carareen kadib markay jebin kari waayeen daraawiishta. taasoo yidhi mudan inaan dhaho sayidka marka ololihiisa 10 ilaa 12 sano uu waday, taasoo sayidku runtii isagii dowladdiisa ama daraawiishtiisa ay noqdeen kuwa ku guuleystay dhan kastaba ka guuleystay yani dowladda ingiriisku sheegaya. wuxuu yidhi ninkan waa nin waday 10 sano uu ololaha waday yani characterkiisa amba yani loo isticmaalay shakhsiyadiisa si ka duwan sida xaqiiqadu tahay calaashan nin waalan bay ku sheegeen. laakiin xaqiiqadu waxa weeye wuxuu uu doonayaa sayidku inuu nabad kula noolaado bini aadamka oo dhan, yani xukuumadda daraawiishta inay nabad kula noolaato dowladaha kale haddii buu yidhi loo ogolaado. marka sababtuu doonayay inay markaa sayidka iyo dowladda daraawiishta inay wadahadal la furaan. laakiinse dowladda ingiriiska waxay dirtay amba ku baaqday olole colaadeed oo ka dhana magaranayay dowladda daraawiishta oo markaa qaatay 3 expedition waxa weeye kambayno kala duwan oo midkiiba sanado qaatay. laakiinse wuxuu yidhi kharashaadka markaas kusoo wada daro kharashaadka lagu markaa 3da olole ay qaateen waa 4 milyan oo pound oo macadgini markaa lacagta ingiriiska xilliga 4 milyan markaa xilliga marka maanta loo eego waxay noqonaysaa $500 billion lacag ka badan, waa 600 oo milyan oo dollarka Mareykanka. marka waad garan kartaa miisaaniyadda markaa boqortooyada ingiriiska ay kula degaanaysay daraawiishta oo markaa dad yar ahaa oo markaa waddanka Soomaaliya waddan yar ahaa iyadoo markaa boqortooyo ahayd qarniyo soo jirtay haddana in lacagta intaa leego maanta u dhigantay 600 milyan oo dollarka Mareykanka waxay ku tusinaysaa runtii waxyaabo fara badan oo qofka dadka ka dahsoona oo markaa sida ay dowladdu doonayso inay u jebiso ku darso dowladda aad bay ku guuldareysatay in ka badan 20 sano aad bay runtii taas u fashilisay boqortooyada ingiriiska, taasoo fadeexad iyo weji gabax ku noqotay xukuumadihii kala duwan ee ingiriiska soo maray. waana sababta ay u diideen inay wadahadal la yeeshaan, taasoo xukuumadda ingiriisku ay dowladaha kale ay guumaysanaysay ayna uga baran in ay jebin kari weydo cadowgeeda. laakiinse taas waxay ku noqotay lama filaan iyo runtii aan fariir in sayidka iyo ciidamo yari uu wato ay daraawiishta ay ingiriisku jebin waayeen. ka soco what we have got for this wuxuu yidhi 40 milyan aan ku kharash gareynay. wuxuu yidhi wax allaale iyo waxaan ku hayno male, waa hal bacaad lagu lisay. waxaa jiray 2 expedition oo hore oo markaa dowladda ingiriisku oo ciidamada hindida hogaaminayaan oo saraakiil cadaan ah wataan. dabcan we have been more or less cut to pieces. wuxuu yidhi daraawiishta markaa nimanka hindida iyo saraakiisha cadaanka ay wateen wuxuu yidhi way gogoosteen. sayidka iyo ciidamadiisuna wuxuu yidhi ciidamada ingiriiska calaashan way annihilated waxay ku sameeyeen ciribtir. wuxuu yidhi laakiinse mar walba waxaa noo sheegaa sayidka iyo ciidankiisa waa la kala cayrsaday amba waa la dabar gooyey.
bad xaqiiqadu waxa weeye isagu sayidka inaan marnaba la qaban. dabcan intan waa in yaroo joogo xogaa jooga oo magarasa muhiim aha laakiin ka boodanaa. laakiinse wuxuu yiri xukuumadda wuxuu yiri sayidka wuxuu ku nool yahay waddanka aan lagu noolaan karin most inhospitable countries, wadamada aan lagu noolaan karin waddan ka mid ah oo markaa oomana ah. wuxuu yiri oo adag tahay in lagu dul socdo haddaan khaldanayn. wuxuu yiri xaraaradiisuna ay tahay sida foormada oo kale. waxa weeye stakeholders foormada u samaysan waa engineka qaybta steamka oo berigii hore jiri jiray. anyway waa sida foormada oo kale u samaysan. marka wuxuu leeyahay calaashaan xikmadda ku jirta in ninkan nugaal magaranaysaay hadba meel laga kiciyo oo marka ay caystaan ciidamada ingiriisku, laakiinse aan wax halaalay wax ka soo saarin magaranaysaay natiijo ah. wuxuu yiri anigu waan ka yaabanahay waana fahmi la'ahay. dabcan buu yiri xukuumadba xukuumad bay bedeshaa. xukuumad kaliya ku guuleysataa yani inay jebisana ma jirto. waa xukuumaddii saddexaad ee markaa la dagaalamaysa daraawiishta buu yiri. sidoo kale buu yiri wasiir kaliya buu yiri oo waan kala ahay hadal cad iga sheega amase written statement hadal qoran isoo gudbiya oo markaa ay dhaha bal ninkan waxa ay xukuumadoodu ka dalnayihiin calaashaan maxay doonayaan xukuumadahoodu inay ninkan magaranaysaay ay sidee ay danta ay kaleeyihiin maxay doonayaan inay ninkan hawsha ay ka qabtaan maxay tahay sababta uu yiri xukuumadba xukuumad bay bedeshaa. xukuumaddii saddexaad ee markaa daraawiishta jimil uu yiri malaha 12 sano uu baarlamaanka joogay. dabcan tanana waxa weeye xogaa ka mid ah xogaa ku jira meeshan weli ma dhammayn laakiinse way dheer tahay oo runtii qoraalku aad buu dheer yahay oo statementiga. laakiinse waxa ku tirsan tan uu magaranaysa hanaanka ay markaa dowladda ingiriisku ay u kaydiyaan xataa doodihii dhacayay qarni sano ka hor runtii taasoo very impressive. waxa weeye waa arrin aad u la yaab badan iyo xikmada ilaahay qofka bini'aadanka inuu hadalkiisa laga qorayo qalin lala daba joogo. tanina waxa ku tirsanaysaa xataa 100 sano ka hor xukuumadda ingiriiska doodihii ka dhacay inay qoran yihiin oo weliba yaalaan weliba si nidaamsan ay u magaranaysaa u yaalaan. maxaad u ka leedahay xagga hoos ku soo qor insha Allah.